hadduu qofku waxa uu kurida wuxuu kurida laaba haduu waayo oo lacagba uu waayo waxa koobkiisa looga xiriyo qof customer oo xaq leh waagu xil wax ku ridanaya akoon aan dhaqdhaqaaq lahayn 6 bilood furan bangiga laftigiisa u baahan qofkii ma dhintay ma nool yahay ma kale marka warkaas kale waxa la raaxo xogtiisa in bangigu uu raadsho qof waxa la xiriyaa baa la yiri koodooyinka aan 6 bilood wax dhaqdhaqaaq samayn qodob baa u dul istaagaya hadduu qofku waxa uu kurida wuxuu kurida laaba haduu waayo oo lacagba uu waayo waxa koobkiisa looga xiriyo qof customer oo xaq leh waagu xil wax ku ridanaya waa meesha waa in laga saaraa qodobka kale waxa weeye oo lambar 4 haddii qofka waxa ku qoran lacag kasta oo ku jirta koondo fadhida waa in loo hayaa si aamina ma in halkaasna waa in laga saaro bangigaaba shaki la gelinaya inuusan bangigan bangi aamin wax lagu aamini karaba uusan ahaynba marka iyada labada qodob ma oran lahaa laga saaro meesha waa maasanti akoonada annagu akoonka safinka kama aan hadlin safinka waa ogtahay waxa lagu kaydsadaa lacag waxa kale oo jira alaabo kale oo ka qaalisan lacagto sida dahabka diamondka ama shayada qaaliga saacadaha hadda Rolex-kayo waxa la dhigtaa bangiyada safe ahaan baa loo dhigtaa oo akoonka safinka ahi markasta beelaha qaar kood adiga sidii boosti oo kale qafil lagu sameeyaa marka la baxaya marka artidna gashan kara wadamada safety laakiin halkaan oo kale akoonka safety ahi waa ka madax banaanaya akoonadan ka hadlayno macaamilka xogtiisa iyo in la diiwaan geliyo qodobka 6aad oo aan wali gaarin baa sheegaya sababaha macaamilka marka horeba loo jeegaranayo inuu damiin leeyahay inuu dad la socdaan in xogtiisa loo dhibay laakiin waxa laga hadlayaa akoon aan dhaqdhaqaaq lahayn 6 bilood furan bangiga laftigiisa u baahan qofkii ma dhintay ma nool yahay ma kale marka warkaas kale waxa la raaxo xogtiisa in bangigu uu raadsho qofkii telefoon u diro la hadlo wadamada qaar kood hadda Kenya kala mobilkaaga markaad furto ka soo tagtid waa laga xiriyaa markuu 6 bilood dhaqdhaqaaq waayo ama soo wici waayo ama wici waayo customer kale uu u baahan yahay baahida dadweynaha iyo customerku kordhisa waa in bangiga xataa chance loo siiyaa inuu ma taqaan akoonka dib qof kale u furi karo oo labood waxa meesha yaala waa inta kaliya mudanayaal marka waa mahadsantii jawaabtiini xildhibaan geel arintiisu soo jeedin bay ahayd waan qaadanaynaa guddo xildhibaan dadkii lacag lahaa oo customerka ahaa lacagooda ay u helaan haddii intii la xaraasho hantida laga xaraashiyo bangiga iyo deynta lagu leeyahay ay kala bataan oo deynta ay badato yaa kabaya dadka haray lacagtooda dawladda kabaysa meel kale uga qareebaysaan cadeeya cidda dadka u haraysa lacagta meeshay ka helayaan haday xaraashtaan fiiri waxaan ka soo shaqeynay maalmahan oo dhan horta xeerarkii ka horeeyay baa geel ka maqnaa hay'adda marka ugu horeyso la asaasay waxa la rabaa in laga dhigo deposit asada ama dhaqaalaha ay ku shaqeynaysa dhaqaale leeg hadii ay kacdo bankrupt ku dhaco socon weydo waxa la xaraashiyaa hantideedii ay ku shaqay deposit ka ahayd ama guri ha ahaato ama dhul ha ahaato ama cash meel u yaal ha ahaato ilaa dad baa hantida iska leh markaas waxa laga bixinayaa kharashaadkii qabtay deymaha ay qabtay dadkana waxa loo celinayaa de lacagtoodii ay ku lahaayeen khasaaraha hadda qayb bay ka noqonayaan waa artay markii banki khasaaro dadku khasaaraha waxa la waxba loo cishaa laakiin hanti maaliyadeed mid dhul iyo mid nool baa ka taagan oo waxaynu ka shaqeynaynay maalmihii la soo dhaafay mudan xildhibaane